السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيد حسن أحمد حسين واي halkan waxaan ku fadhinaa jamaahiirta culimada muslimiinta wajeer yaan halkan ku fadhinaa masaajidka jaamica salaam. waxaan ogeysiinaynaa ummadda islaamka wixii hadalka anaga maqlaay khayr Allah siiyo caawa in ay tahay ramadaan awalkiisa oo khamiise gaaladan aan joogno wajeer maqaayada furan iyadoo ramadaan lagu jira. waxaan u sheegaynaa dadka ayaga waxay gadanayeen inay xaraan tahay diinta islaamka ay ku banaaneen. waxay gadanayeen waa xaraan ma banaana kuwa waxa jiraan qaad ku cunaan duguga dhaxdooda dadka ayaga ee muslimiin waa lama dhihi karo haday dhintaan salaad lagu tukanayo dadka muslimiin sheeganayeen oo qaadka ku dhax cunay idoo ramadaan la jooga duguga dhaxdooda qaadka la fadhiya lagu tukanayo salaad lagu tukanayo hadii ay dhintaan gooni ahaan dadka maqaayadaha yar ku haystaan xaafadaha iyo ku dhaxaysan suuqyaasha dhaxdooda inay iska xiraan maqaayadaha irsaaqda Allah idin waasiciyo in ramadaanka aad iska xirtiin ayaa loo baahan yahay insha Allah taala. waxa la arkay gabadha muslimiin oo big raacayeen oo lugaha intay dhinaayaha ka ritaan ninka gaalka ah oo saarnay bahasha macnaha qabsanayeen maxoga war waxa sayta diin ma aha dadnimo ma aha sharaf ma aha haween muslimiin ahna ma aha kuwa ayaga waxa loo baahan yahay inay ka baxaan foolxumada ayada iyo sharaf la'aantaas inay iska baxaan gabdhaha muslimaadka ah oo big intay raacaan waliba intay lugaha labada dhinac ka ritaan ninka gaalka ah maxoga ku dhagan mujrimad cadaysata ayaa tahay hadii lagu helana khataraad ku sugan tahay waxa loo baahan yahay inaad ka baxdid hawsha ayade Allah idin siiyo magaaladan aan joogno wajeer hal sano ku dhawaada waxay ku jirtaa light la'aan ay ku jirtaa magaalada lightka waa naga go'on yahay lightka anaga wuxuu noqday macnaha wax marna soo dhaca marna imaado oo dadka ay ku xisaabtamaan waxaan u baahanahay qolada baawan lighting ilaahay ha idin barakeeyo dhibaato lagu jiraa sad ogtihiin haddana ramadaan la galay waana kuleel dadka inaad u sii daysaan korontada inta tabartiina yaa loo baahan yahay oo aad dadka koronto soo gaarsiisaan. waxa kale oo la hadlaynaa dadka mas'uuliyiinta oo laga soo doortay magaaladaanay MPyaasha women repta iyo governor iyo dadka magaalada laga soo doortay kuuraha loo riday dadkiina dhibaato ay ku jiraan kamana hadlaysaan waad aamusantiin wax idin ku dhacay ma garanayna. waxaa la idinka rabaa khayr Allah idin siiyo in aad macnaha la hadashaan dawladda si dadkan loogu keeni lahaa koronto ku filan oo macnaha magaaladan waa magaalo weyn waaye wajeer mandiqooyinka weyn ay ka mid tahay. waxaan u baahanahay inaan koronto helna nagu filan hadduu Ilaahay yiraahdo haddaad iska aamusnaataan oo Nairobi iska joogtaan annagana aan dhibaato qabna haddii waxa waaye dhibaatada waxa waaye idinkana qiyaamo qeybaad qaadanaysaa waa inaad ku talagashaan. waxaan rabnaa dadka inaad u qaylisaan si koronto ay u helaan koronto la'aan lama noolaan karo adduunka maanta aan joog. magacay waa Cabdulwahaab Sheekh Isaaq waxaan ka mid ahay culimada wajeer oo caawa fadhida masjid jaamac munaasabada loo imaadana ay tahay farxad lagu soo dhaweynaa ramadaan oo caawada noo bishay oo noo dhalashay. intaas kadib dadka muslimiinta ah yaan fartiin inaan gaarsiina aan rabnaa fartiintaas oo bisha ramadaan waa in aan soo dhaweyna kuna soo dhaweyna mahad Ilaahay dadka maqaayadaha kariya ama rag ha noqdeena ama bilcaan ha noqdeena ama maqaayad weyn ha noqoto ama mid yar ha noqoto waa in la xira maqaayadaha waa in la xira. dadka qaadka ka shaqeyna waxaas arkaysaa haween oo bilcaan oo sooman oo waa soomana kule oo qaadna haysa dad fara badan ka gadi cuntana karine dad fara badan ka gadi yaad arkaysaa marka soonkeedaas sidii shariicada islaamka ayna tusini ansixi mahaye maxaa yeelay waaba caasi qofkaas asaga ah qaadkaas inay dadka ka gadda oo ramadaan la joogaa xalaal aan u ahayn oo u banaaneen cuntadaas maqaayada inay ka gadda aan xalaal u ahayn oon u banaaneen. waxaa kaloon sheegaynaa waa in laysa naxariista haddii nahanay dadka muslimiinti waa in aad layskugu naxariista. magacaygu waa Muxyidiin Dhow Sheekh imaamka masaajid jaamic wajeer muslimiinta dhammaan caalamka waxaan leenahay ramadaan mubaarak ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaan kuwii cibaado laga aqbal Allah naga dhigo
kuwii soonkaas maaragtay naarta laga xuriyo allaha nagu daro muslimiinta waxaan ugu tahniyeynaynaa bishan mubaarak bishan ramadaan barakaysan baan ugu tahniyeynaynaa kadib waxaan leenahay walaalayaal bishaan la xurmeeyo bishan aan xurmayno maqaaxiyaha la sheegayo maaragtay ee furan maqaaxidaha la xiro anshaxa maaragtay la ilaaliyo gabdhaha xijaab la'aanta magaalada wareegayo ilaahay ka baqaano xijaab ha qaataan kuwa bigibigida raacaya ilaahay ha ka baqaano ha xishoodaan ha iska dhaafaano ha lugeeyaan taasaa u khayr badan intii ay naarku gal lahaayeen marka waxaan walaalaha muslimiinta u sheegay inay is caawiyaan abaar badan baa la soo maray dadka waxa ma haystaan nin walba walaalka afuri aimada masaajidda waxaan u sheegaynaa inay ka warqabaan ciddaan afurin masaajidda nin walba maaragtay boqos timir hadduu keeni karo ha geeyo si qof maaragtay afur la'aan aha uu helo afur uga helo nabi sal alla alay slam wuxuu yidhi ninkii qof sooman afuriyo waxuu helayaa qofkaasoona ajirkiisoo kaleu heli iyadoon qofka sooman waxba aan laga nusqaaminaynin marka nin walba anaga naga mid aha isku dayo qof sooman inuu afuriyo aan isku dayno walaalo badan oo muslimiin waxaa jiraan afur aruurinaya ha lagu darsado baybiilada maaragtay wax lagu aruurinaya ha lagu diro majlis la'ima culummada baybil inay leeyihin wax ku aruurin doonaan oo afur wax lagu aruurin doonaa ha lagu soo diro laga qayb qaato jazaakum allahu khayran